السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحابة ومخالد كحرا وإذن سلام يا دمانتين ميلا تشوكتان بولا ليال دمانتين وإذن سلام يا الله إذن سلام يا ومالن ثلاثة دمانتين وإذن سلام يا ولا ليال الله إذن سلام يا دمانتين ميلا تشوكتان با ويوتيوب ومخالد ما أنت بشوى أفرية طبعا يشاني طبعا مدودوا بالحج. الحمد لله إلهي النعمة ينبدونان بنقصو قارسيي أذن كان إلهي النعمة ينبدونان هيدكو قارسيي هيدكو سو قارسيي دمانتين إلهي إذن كيسا دمانتين ولا ليال ميلاد شوكتان بمية مقالة وإذ السلامية الله إذ السلامية للدنيا آخرة الحمد لله والشكر لله أيانتان روب يبرواق أيضا فسح لقجرة وحبا اسكو كاية درمد الحمد لله إلهي باب مهدا اسكال والشكر اسكال أذن كان سيدا يسير لمده انتي دباتها يستر الله قادر الرحمن كاوحانو كبريينا إلهي إنو كسارو كوي جيل كجرو قعان بلو آدن كجرو الله وحان كبريينا الله إنو كسارو كوي عذر هيو عذر لا هرس لا تشوغو إلهي وحان كبريينا إلهي إنو كقادو إلهي إذن كيس فرحد يا خير إني كواران يسوي وحيسن فيلين الله كواري إلهي إذن كيس بإذن الله لما أنت ولا ليال أين سد عينه وحلقة يا بقف الجتر إلهي باء وحلقة يا بقف إنك من الدعاء سين لا أقبله إلهي سبحانه إنه أقبله إلهي إنه أقبل الدم بجني الدم بورد كأن الله داف دمانتين ميلان شوق نبأ عافي مات إن شاء الله ما لنت الروب كا ولا ريال ساك أو ثلاثة وحن لبدأ برمان السوق لينو وأنا جدين صدوا بينو طولة فوق أو طولة هذا النشران ليرى هذا أو ويرشوا صومالي ذا يكون حريين أيان تجي ويرشوا ما أنا تجي لكن طولة ذا لفت جدا أنت جاي وأنا جدين صدوا بي يوتيوب كي كشرتها ولا ريال مد بدنا عايزين صدوا بينا وايجا تكتيو حقيقة أو طريقي يمشي للصومر يوحي أو دن أي ماركتا أي كشرتنا واتا يدين شيء وايجا ترترمتي ولا ريال دمانتين مركو حند الله يدين سلامية الدنيا أخربا دمانتين الله هيدين كحفظ ميلها تشوكتان ما أنت واحد ربعنا كهلو ويلل يريرة oo kontameeya oo dil lagu xukumay dil baa lagu xukumay waad aragtay youtube kay ku jiraan meeshaan ku xiran yihiin aan joogo meel u dhow bay ku xiran yihiin waxa weey wiilashaas ayagoo soo lugaynayo buuraha soo dhex maraya ama buuraha soo lugaynaya la qabqabtay waxaana lagu dabaqay inay maaragtaa la socdaan qolada kale ka soo horjeedo bowda gaabta yamanta dhibtaas waa wiilashii maanta wadankeenu ay lahaa waa konton wiil oo yar oo iswada leeg waa wadanka waa dhalinyaradii wadanku ay lahaa maanta ama wadanka difaaci lahaa weey Allah subhanahu qaadirahana maanta u maqana halkaas ku jiraan dil baana lagu wada xukuma waxaan leeyahay marka waad aragtaan xaaladda qurbaha ka jirta caruurta wadankooda ka soo baxay qofku wadankiisu ku sharaf iyo maamuus leeyahay wadankiisu ku sharaf iyo maamuus leeyahay magac ku leeyahay muunad ku leeyahay qabiilkii qurunka aad sheeganaysan ku leediin laakiin markii wadan qurbaa la yimaado Soomaali xunuhu tacbaan ahaatay ha boqol ku adeegato marka walaalayaal waxaan leeyahay wiilashaas Allah baa u maqan Allah qaadir raxmaana ayaa gacantiisu weynta u maqan yahay waxa kale u maqan dadka Soomaaliyeed ama dawlad ha ahaadeen ama shacab Soomaaliyeed ha ahaadeen ama siyaasiga beentaayo meesha fadhiyo oo
sida maxaa labada digsi oo dhardhaarta ah digsiga dabka ku jira sugahaya ha noqdo waxa weeye wiilashaas waxay u baahan yihiin dad bay u baahan yihiin nimanka aqoon-yahanka bay u baahan yihiin nimanka dawladda bay u baahan yihiin wax walba oo Soomaali u qaban kartay u baahan yihiin sababtay taa waxa weeye waxa lagu haystaa xuduudda lagu haystaa waa konton wiil waxa la yiri waxaad u dagaalamaysaa nimankan sheecada ah baad u dagaalamaysaa marka walaalayaal Soomaaliye maanta konton wiil oo yar yar ah ina kama goodo hooyooyin badan oo waxaad arkaysaa wiilal baa iga maqan rag baa iga maqan kana iga waxaysan wiilashaadii hooyay waxay ku xiran tahay waxay ku xiran yihiin meeshaan ku xiran yihiin toogasheena ku xukuman yihiin waanad ka aragteen baan u maleynayaa YouTube-ka waa kuwa ku jira ka hadal ma lahan wax la qarinayo iyo wax baalkii lagu raadinayo midna maahan waa waxaad aragteen dhibaatada ka jirta meeshaan rag iyo dumar ba inay ku xiran yihiin baa laga yaabaa gabdhaha la raadinayo inay meesha ku xiran yihiin baa laga yaabaa gabdhaha la raadinayo inay meesha ku xiran yihiin baa laga yaabaa marka waxaan leeyahay Soomaali weynay ha loo gurmado dhalinyarada kontonka ay halka ku xareysan oo dilka toogashada dawladdu ku xukumatay ha loo gurmado intaad siyaasiga digsiga sugahaya karsamahaya intaad iska daysaan ha loo gurmado dhalinyarada kontonka oo meesha ku xareysan gurmad beedi kaga baahan yihiin mid alle iyo mid aadanaba mid alle iyo waa u baahan yihiin mid alle iyo mid aadanaba waa u baahan yihiin ilaah baa wax hagaajin kara laakiin Allah subhanahu wa ta'ala meel baan fariisanayaa ilmaha ii yimaadeen lagu dhihi maayo wax walba dadaal bay u baahan yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka soo furfuro waa ku dhiban yihiin oo ku dhibaataysan sidaad aragteen bay ogyihiin meesha aragteen oo halaysana waa ku jiraan oo dhibaataysan hooyooyin baa ku soo tiiriya tacab beelay ku soo baabaay oo ku soo siday ku soo kariyeen ilaahay ogyahay qurbana inuu samaanta khayriye ina asal lahayn kuwii lagu koriyeen waa la hayn laaya meel ay joogaanba ciyaalku ama gaalaha la joogan ama muslim ha la joogeen saasa loo hayn laaya meel walba ay joogan ilaahay noo xafida allah xafidaha insha Allah ilaahay ha xafida ilaahay idankiisa marka kuwan cadow baa haysta oo dil toogasha ku wada xukumay kana nixmayaan wallahi baaskay marinayaan say koob biya uguma fadhiyaan hal koob biya uguma fadhiyaan kana dhiman mayaan dadna ka dhiman mahayo ayaga waxa weeye waa laynaydaas ka rabaan inay kuwa kale soo socdaa baqaan bay rabaan ayaga intaas ay rabaan bas marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ama shacab ha ahaadeen ama siyaasi digsi kor fadhiya ha ahaado ama kuwa madax sheeganayo madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal sheeganaya ha ahaadeen waa in loo gargaaraa wiilasha ku xareysan Najraan wiilasha meeshan ku xareysan oo dilka ku wada xukuman oo kontonka ah waa inta iyagu og yihiin oo meesha kula xareysan inta kale dhulka kale ku xareysan oo ku xareysan ma ay oga marka walaalayaal waxaan idin leeyahay isu gargaara sida ilaahay idinkugu gargaaro Allah si idinkugu gargaaro isu gargaara waa dadkiinii weeye dalkiinana saasan khayr loogu rabin isma garato isma ogaa la yiri isma og islaan daan baa la yiri inta adinku isaysateen oo qabiilka isu haysateen oo adinku isku baabiiseen oo hebelka isku haysateen ayaa korkiina laga shaxay ayaa ilmihiinni dariiqyada lagu baabiinaya naagihiinni lagu baabiinaya gabdhihiinni lagu baabiinaya adunkuna digsiga wada dul fadhidaan oo keebaa ka kacaya keebaa maanta qabiilkee digsiga shidanaya weeye sheekadiinoo dhan keebaa dabku u shidan yahay weeye intaas ka fakaraysaan qabiilkee maanta digsigu u shidan yahay bal yaa arkay oo maqlay oo ka sheekeeyay nin baarlamaanka ah nimanka baarlamaanka ah ninkii ka baxa qabiilkiisii nafta ka dhacaysa
dadkan waxa loo keenay inay dadka u shaqeeyaan maaha nin qabiil ku xisaabtamo maaha nin la yiraahdo reer hebelkaygu ma helinin ra'iisul wasaare ma helinin ورئيس الوزراء iyo madaxweynayaasha hadii hal qabiil laga dhigo inay dadka u shaqeeyaan baa muhiim ah maahan inay xoolo naga abuurtaan maahan inay guriga naga dhistaan maahan inay adduunyo kala jeexdaan waa inay dadka u shaqeeyaan adeegayaalkii dadka weey marka waxa weey walaalayaal ilaaha subhanahu wa ta'ala xaq adan xoogaaga ku shaqeysan oo aan raali lagaaga ahayn waxba ku tarimay adduunyo aakhiro waa kan aakhiro lagu gubahayo waa kaad aakhiro ku gubanaysid shacabkan meel walba ku xirxiran oo meel walba ku baabaasan oo meel walba lagu leenayo oo meel walba ku qaxootiga hadiina u turinin ama iinan muxuu hayto maanta saa ku badbaadin lahayd falankeeda iina qabanin maahan adinku ka xooleysataan oo dawladaha xoolo uga soo qaadataan kuwaas waa kuwa adduunyo aakhiraba ku baabi'i lahaydeen Soomaali weyne u taliya dadkan iyo dalkan u taliya nimanka digsiga korkiisa fadhiyo dalkan iyo dadkanba u taliya waad aragtaan adduunka waxa ka jira meel walba saasa la soo haysta hubab waaweyn baa la isu dheela dhaansada inaguna qabiil baynu isugu dheela dhaansan oo inta isku haysanaa dadkeenina wiilasheena xununkaana waa kuwa dariiqyada ka ooyahayo lagu ulaynayo ximaar lagu hayo ximaar hadda ximaar waaba ka hooseeyaan ximaarka waaba ay rabaan waaba rartaan laakiin ximaar waxa weey waxaan waxba ahayn weey marka Soomaaliyeed dadkeena iyo dalkeena ama u dadaala ama dadkan ka hor leexda Ilaah bay leeyihiin gaalaha qabsatay ka hor leexda sababtay taa waxa weeye gaalada lafayba ka heli lahaayeen adinka lafana leedika helimayo wallahi inaan lafana idinka heleen adinka carabka iyo cagtaba ku duugay walaalayaal marka waxa idin leeyahay wiilashayadiyo digsiga kulaylka waxa ka keena baa la yiri waa karkada hoos uga shidan kulaylka iyo hadal xumada waxa naga keenaya markaanu aragno dhibaatada ka jirta dhalinyaradii iyo dadkii iyo caruurtii iyo makastii haysata ayaa wax walba naga imaanayaan inaan ku hadalna ay noqonaysaa sababtay taa wax noo naxaya ma arag wax naga shaqaysanaya ma ahna wax naga naxaya ma aanu arag caruurtayda qurbay ku muxuu hayto ay wada taagan yihiin aysan ma aragta u dhalan oo la leeyahay waxaad tahay muxuu hayto waxa tahay Soomaali xunahaata meel kasto ay joogaan ama gaalaha u tageen ama muslim ha u tageen waddankayaga haduu hagaagsan yahay oo wanaagsan yahay oo muxuu hayto uma ana baahaneen inaanu gaala iyo carab midna ag taagnaano ama lagu xirxiro caruurtayada iyo lagu bahdilo dhamaantiin marka walaalayaal ogaada waxa weeye dhibaatada waddanka ka jirta ama dalka adduunka nagu haysata inay tahay nimanka siyaasad xumadooda inay tahay siyaasiga qurunka oo digsiga dul fadhiya oo sugaya lafu kala baxo kaas inuu nabaabiye hal ogaada aakhirana aanu haysano ilaahay idankiisa aanu maxkamadda rabbil caalamiin kala fuulayno maxkamadda alle inaan la fuulayno aan daynayna aakhiriya adduunba ha ogaada ninka siyaasiga oo Soomaaliga ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq haydu ku soo doo xaq haydu ku dilo xaqana haydu fahamsiyo hana idin tusadadkiina ku baabaasan muxuu hayto qurbaha ku baabaasan oo yooyinkiina caruurtii laga qaatay qurbaha ka booyahay dhibaatada ka haysata waddankeena dalkeena dadkeena ka haysata amaan la'aanta adan gurigaaga amaan adan ugu jireynin adan u joogaynin oo ad ka baqaysid ilaahay muxuu hayto xaq haydin tuso ilaahay idankiisa dhamaantiin meel aad joogtaan waxaan leeyahay xaq Allah idin tuso Soomaali weyne adduunyo la xambaarsada waxba kama tarto aakhira waxba kama tarto aakhirana iyo amalkiisa isla tagaya waxaad ceeb iyo wanaag bageysatay baa kaaga horeeya aakhiro ilaahay dambigeena iyo dambi waaridkeen baa dhaafo dhamaanteenba Soomaali maxamedey walaalayaal isoo cafiyaana waa idin soo cafiyaya ilaahayna dambigeena iyo dambi waaridkeen baa dhaafo ilaahay idankiisa biidmillaah waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh